iyadoo lagu jiro maalmaha xorriyadda anagoo ka duulayna dadka mataqaanaa attitude-kooda waxa xorriyadda mataqaanaa ka aaminsan yihiin aan ku soo baxnay xeebta Liido saas darteed dadkii aan la kulannaa ku jirtaa marka waxaan ku weydiinaynaa wixii adiga ahaan macnaha maskaxdaada xorriyad u taqaanid maalinkii gumaystaha aan dalka ka saarnay oo calankanaga la taagay taasa xorriyad la xorriyad waxa uu qaanaa shay waliba oo qofka siinaya wax walba uu xaq u leeyahay inuu suubi karo mase uu dhihi karo wax walba uu ficilan uu ku dhaqaaqi karo asiga uu doonayo xaq ah xorriyad waxa uu qaanaa farxad inaa baashaa dad guuleystay aniga habeen iyo maalin waxa u taaganahay dadkii diinteeda macnaha inay ku raaxaystaan nabad iyo dhiigii ee dareemaan macnaha nimo waxa uu qaanaa nabad geesano maanta si xunnimo meel kasta ku aadi kana eber maalin haysan tan oo kaleente sidaan oo kale hadda raaxaysan Soomaaliya oo dhan way raaxaynaysaa sanadii hore ku duwanaa maasha Allah alxamdulillah wala Soomaaliya noolaato I think barnaamijka inuu yahay barnaamij aad muhiim u ah sababta waxa lagu jiraa maalmihi xorriyadda in barnaamijyo ama su'aalo ku saabsan isla xorriyaddana in la isweydiiyo it's very important and I believe xorriyadda inay tahay in qofka uu haysto yani xornimo naftiisa horta basically oo aadan talaabo walba qaadaysid cidna aadan kala tashanayn marka la dhaho in order for our country I believe inay tahay xorriyadda yani in dalka iyo dadka ku noolba ay yihiin dad yani bulshada kalena ku dhaxlay qiimo iyaga dhaxdoodana ay yihiin dad maaragtay waqtigooda iyo wax walba ay sameynayaan ay xornimo ku sameynayaan dalku waa dalkeeni dadku waa dadkeeni diintu waa diinteeni dantu waa danteeni dacal ha loo ahaado hadda Soomaali mislada xurwa aad iyo aad Soomaali xurwa kastoo is leeyahay xurwana ma Soomaaliya xurwa xorwa boqolkiiba boqol Soomaali xurwa maxaa yeelay maanta waa u jidaa farxadeena u jidaa mo halkan maana taagnaan leena dana xorayn sababtoo ah waxa kaliya ee nagu filan ee noo xaqiijin kara Soomaali inay xurtahay waa calankan buluuga ee maanta kor u heeno murmagal maradeeda iyo mulla isa qeysam meel walba ku mara